السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحدي عافيمات تام أيان دين رجينا يا ميل كستو أدون كاد كجوكتان ولها شرفت بدن فائدة عافيمات بين سوق عدن طنايا شاها سنجبيشة انتينا فائدة عافيمات أينانو يمن سنجبيشو مركا كومان وحلوغا ديغان دادك ديغودو فرفران يحي تصالحان دادك قوا حنونك هيموفيليا ee dhiigoodu xinjiro uga lahayn wadna xanuun haddii aad develop garaysay ama xanuun wadnuhu ku xanuunayo haddii dhiigaagu furfuran yahay sinjibiishu waxay ka qayb qaadan kartaa in dhiigbuxu uu sii bato ama markaa in dhiig furfurnaanshihiisa ay aad uga qayb qaadato dhibaatadu ay sii korodho marka marxalad kasta oo dhiigu marxaladda furfurnaanshaha uu ku jiro waa looga digaa aynu nimaadna markaa shaahan laga samaysto sinjibiisha faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay faa'iidada koowaad waxa lagula taliyaa dadka qaba hargabka oo waxa ay leedahay sinjibiishu anti-inflammatory iyo antiviral properties labadaba way leedahay markaa dadka inta badan hargabka qaba ama kuulku ku yimaado ama fuluugu ku yimaado xilliga ay la daalaadhacayaan hargabka marxaladda hargabka xilliga ay la daalaadhacayaan waxa lagula taliyaa shaaha sinjibiisha inay qaataan relief ay ka helayaan oo waxa ay leedahay anti-inflammatory oo xanuunkiibaa ka yaraanaya waxa kale oo ay leedahay antiviral oo viruskii hargabka sababay ee kugu keenay impactigii uu kugu reebay iyo markaas viruskii xilligii uu jirkaaga ku jiray baan raysasho ayaad ka helaysaa marka aad isticmaasho shaaha sinjibiisha faa'iidada noocaas ayuu leeyahay qofka marka uu ku dhaco hargabku ama marka uu ku dhaco xanuunada hargabka iyo fuluuga la yiraahdo iyo kuwaasi marka qofka ay ku dhacaan qaabka noocaas ayuu caawiyaa dadka ay ku dhacaan xanuunada hargabka iyo durayga iyo xanuunadaasi arinta labaad ee uu faa'iido u leeyahay shaahan sinjibiishu waa qofka marka uu codku ku xidhmo codku marka uu qofka ku xidhmo codka xidhmayaana uu ku sababay hargab ama duray qofka marka xamaagta waxa la yiraahdaa qofka ay isku xidhaan ama xabeebta marka isku xidhaan qofka cunuhu kala xidhmo isagoo arinta ay keentay virus sida hargab iyo duray iyo kuwaas ay keeneen ee qofkii xamaagtii hargabka iyo durayga ka tibay xidho waxa uu faa'iido caafimaad u leeyahay codka xidhmay furitaankiisa qofku inuu markuu sinjibiisha isticmaalo inuu ka raysto oo codkii ku xidhmay uu ka helo markaas inuu si fiican uu relief badan ka helo codkiina qofkii uu ka soo baxo oo markaa codkii uu furfurmo oo xanuunkii markaa hayay ee taasiirka ama impactiga ku keenay in codkii uu ka xidhmo meesha uu ka baxo oo markaas uu sidaa kaga dawoobo xaaladda noocaasa faa'iidadana uu leeyahay waa faa'iido runtii la soo qaato qofka marka uu codku ku xidhmo ee hargabka iyo durayga iyo xanuunada virusku keeno ay ku xidhaan codka inay u furfurto sinjibiishu marxaladda saddexaad ee shaaha sinjibiishu ay faa'iido u leeyahay waa raysashada xanuunka qofku marka uu bayn dareemayo xanuun marka uu dareemayo baynkaas ama xanuunka marka uu dareemayo haddii uu shaaha sinjibiisha isticmaalo xanuunkii iyo baynkii uu dareemayay uu ka raysanayaa sababtuna waxa weeyaan sinjibiishu waxa ay leedahay anti-inflammatory aad u badan ama xanuun baabiye ayay leedahay xanuun baabiyaha ay leedahay waxa uu keenaa in markaa xanuunkii qofka uu ka yaraado oo xanuunkii sidaa uu kaga raysto faa'iidooyinka caafimaad ayay shaaha sinjibiishu leeyahay waxtarka noocaasa ayuu leeyahay intaas ayaan ku soo koobayaa oo ku soo ururinayaa haddii muuqaalku ku soo gaadhay waxna aad ka faa'iiday
fadlan bulshadeena kale la sii wadaago. Assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.